maanta oo loo asteeyay xuska dhalinyarada Soomaaliland oo ku beegan 20 Febraayo ayaa lagu xusay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaana ciyaar lagu xusayo maalinta dhalinyarada Soomaaliland lagu qabtay garoonka kubadda cagta Cabdi Bile Cabdi ee magaalada Laascaanood waxaana soo qaybqaabiyay maalinta xuska dhalinyarada Soomaaliland dalada Soonyo ee Soomaaliland waxaana ka soo qayb galay gudoomiye ku-xigeenka gobolka ahna kusimaha gudoomiyaha gobolka taliyaha qaybta booliska ee gobolka Sool iyo mas'uuli ka socota wasaaradda ciyaaraha ugu horeey waxa halka ka hadlay Cabdiraxmaan Xasan Xaamud oo madaxa dalada Soonyo iyo waliba gudoomiyaha ururka Sutra Khadar Ahmed Maxamuud intaas baan salaamaya salaamka bacdi maanta waa maalinta xuska dhalinyarada waxaan maanta kale aan doonaa labada kooxood ee ay wada ciyaarayaan waa nabadeynta iyo isdhexgalka dhalinyarada maalinta saasan ugu xusnaa marka maanta waxa weeye maalin aad farxad noogu leh dhalinyarada hadaan nahay gobolkaygana aan doonayno inuu dhalinyaradiisu isku xidhnaato isna dhex gasho lagana tago qabyaalada iyo kala fogaanshaha dhalinyarada iyo qobqobka qaran ee Soonyo iyo ururka Sodra oo iskaashanaya aad iyo aad baan ugu hambalyeeyaa dhammaan ciyaartooyda ka soo qayb gashay labada kooxood ee Tuksol iyo kooxda Banaadir aad iyo aad baan ugu hambalyeeyaa waan soo dhaweynaynaa labada kooxood ee ciyaaraya ciyaartuna si qurux badan bay noogu socotay ciyaartaas oo ay ku wada ciyaarayaan laba kooxood oo kala Tuksol iyo kooxda Banasol waxaa muhiim ah in dhalinyarada la dhiirigeliyo waxaan u mahadcelinaa ururka dhalinyarada Soomaaliland Soonyo oo nala joogo mas'uulkii ugu sareeyay gobolka waxaana soo gabagabiyay maamulka gobolka marka gobolka kaga qayb qaatana inaan nabadgelyada ka shaqeysaan inaan dhalinyarada reer Laascaanood maxaa qaldan dhalinyarada reer Laascaanood waxaan ka codsanaynaa maadaama tihiin mustaqbalkii gobolkan maadaama tihiin raasamaalka kaliya ee dadkani ay maanta haystaan ee uga tagayaan gobolkan iyo dalkan waxaan ka wacyigelinayaa in nabadgelyada ka qayb qaataan oo nabadgelyada ka shaqeysaan maanta dhalinyaro weeye wax soo kacaya ama wanaag iyo xumaan dhan kasta ay leedahay oo laba dhan walba loo adeegsan karaa haday wanaag tahay iyo haday xumaan tahayba waxa laanta la adeegsan karaa waa dhalinyaro markaas dhexgalka bulshada inay wax badan ka qabtaan nabadgelyada ka shaqeeyaan isu soo dhaweeyaan way waxa ama koobka ama ciyaaraha ama loogu qabanayo ama maalinta loo astaynayo Khadar Tarabi Somnis TV Laascaanood